بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أهبون أخياري ومركن يبرامجكني أوغالك دعدوينك مقالكن وحينو كسو قادن دونا دعدو لياب لي أو كدعدي dalkaasi Mareykanka gaar ahaan waxay qisadan dhex maraysaa gabar yar oo hadiyad loo siiyay digaagad yar oo tuka ah waalidiinteeda markay safar aadeen kadib ay ka imaadeen laakiin markii ay gabadhaas yarta ah iyo ay saaxiibeen tukaas ama quraabkaas yarkoo digaagad ahaanta loo siiyay maxaa dhacay sheeka cajiib ah ayaa dhex martay iyo jacayl aan caadi ahayn intaan ku soo gudbin hadii ay tahay markii ugu horeysay fadlan channel subscribe iyo gobelka taabo ku mid noqdo dadka halkan ku xiran iminkana sheekaas la yaab kale oo dadka la yaab iyo fajax ku noqotay iminkana ku soo dhawaada waxaan ku bilaabi doonaa sidan gabar yar oo lagu magacaabo Rocky waxay ahayd gabar yar oo aad u qurux badan taas oo ku soo kortay guri ay taalo farxad iyo kalgacayl xad dhaaf ah cidana waxayba ka qabeen ilmo gabadhaas kaliya taas oo ay koolkoolin jireen ahna mid ay suuraha ka badiyeen haddaba maalmaha ka mid ah kadib markii ay ka soo laabteen safar dibadda ah labadeeda waalid ayaa safar dibadda ah jiray kadibna way ka soo laabteen si kadisa ayaa gabaran aabaheed wuxuu u siiyay hadiyad aan caadi ahayn hadiyadaas caadi ahayna waxay tahay digaagad yar oo tuka ah ayaa la siiyay kadib markay digaagad yareed oo tuka ahayd ay kor u qaaday ayna cad badar iyo waxaasi ay afka u gelisay waxay dareentay gabadhii yareed Rocky inay qaaday wax balaaran oo mas'uuliyad ah iyo sida loo daryeelo shay ama wax adiga lagu aamino oo kale inantan yar marka iyo shimbirtan tuka ah waxa dhex maray xidhiidh adag oo la filayn kaas oo noqday inay wada duqoobaan ama ay nolosha oo dhan ay aadaan kuwa saaxiiba laakiin maxaa dhacay nasiib darro maalmaha ka mid ah iyada oo hoos jiifta geed ku yaala beertooda ayaa gabadhii isla si lama filaan ah ayay u geeriyootay gabadh yareed sabab aan la garanayn darteed ayana gabadhaas yar u geeriyootay intii lagu guda jiray aaska gabadhaas yar tukihii ama quraabkii wuxuu dul saarnaa naxashka gabadhaas yar ee dhimatay ee xiriirku uu kala dhaxeeyay kadib waxa dhacday baa la yiri arrin la yaab leh oo mucjiso ah oo la rumaysan karin laakiin qoysku taas waxay sheegeen in aysa soo bandhigin mucjisadaas haddii sheekadan wax kale ay ka soo cusboonaadaan oo idinla wadaagi doona dabcan haddii ay wax kale ay ka soo cusboonaanayna dee nabaday channelkan subscribe saara dhacdooyinka ogaalka dunida waxaad ku maqli doontaan waxyaalo aad u tiro badan ogaalka dhacdooyinka nabaday